wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Djibouti Ridwan Cabdullaahi oo isna Axmed Nagaasho la xiriiray ayaa sheegaya in arintaasi sababteedu ahayd isfahan waa dhacay ee aanu markabkaasi kuba socon berbera. waxa weeyaan xarig waxa la yiraahdaa deer baa la yiraahdaa xarigan waa xarig telecommunication-ka xarigan wuxuu ku socdaa Boosaaso ila maayo Muqdisho tagi doonaa Muqdisho uu dhaafi doonaa wuxuu tagi doonaa Mombasa xarigan uu garan maraya oo dhinacan badan economic zone ku dhex maraya oo berbera haba yaraatay ma tagay Somaliland haba yaraatay ma tagayo laakiin xogtaanu haynaa waxay tibaaxaysaa inuu markabku isku dayay inuu berbera gaadho dabeetana xadhigga halkaa looga tallaalo Somaliland oo internetka uu xadhigga deer la yiraahdo sheegaysaa uu sido isagana la gaarsiiyo sida muuqatana cid idinka codsatay oo aad heshiiska la gasheen ma jirto xukuumadda Somaliland waxay sheegtay inaanu xadhiggaas marnaba aydan ka wada hadlin bal hadda halkaa faahfaahay waxa weeyaan waa khalad magaran si xun baa loo fahmay xariga haba yaraatay kuma soo dhacayo berbera Somaliland ma imanayo wala Somaliland wala berbera midtoona ma imanayo ma garatay zaanib u dhaafaya oo xuduudkan waxa la yiraahdaa biyahan caalamiga ayuu dhex socdaa xarkii oo dhan ay adduunka wada dhex marayaan zaani isaga dhex maraya laakiin waxaad sheegtay wasiir in uu khalad faham dhacay oo si khaldan loo fahmay warka marka khalad ka fahmay ma xaqiinaan war cad oo buuxa ka soo bixin maxaa keenay in si khaldan loo fahmo talaabada wallahi khaladku dadku horta waa bilaadanku nina soo qaaday baa dhahaa garan xiliga waxa weeyaan Boosaaso u garan maraya ma galayo Somaliland u garan maraya kuma dhaadhacayo xiliga dadku si xun bay u fahmay baan u maleynayaa rag baa si xun u fahmay oo mooday in xiligi berbera leeyahay inuu soo dhaadhacayo Somaliland ku soo dhaadhacayo laakiin xogta kale oo haynaa waxa weeyaan xogo kale oo aanu helayno ila lagu kalsoonaan karo aanu ka helaynaa waxay tibaaxayaan in wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti doonayo inuu socdaal lagu baxo Hargeysa oo arrimaha kala hadlo xukuumadda halka ka jirta marka hadalkaaga iyo xogtaasi miyaanay isa seeganayn oo aan la moodin inaydan ilaa haatan waxba cadeynayn haddaad reer Djibouti tihiin may wax dib lama wasiirkan arrimaha gudaha arrinka uu tagay Somaliland arrinka uu socdaa wasiirkan arrimaha gudaha xariga arrinkiisa oo ma socdo arrinka xarigiisu aniyo ninkan wasiirkan warfaafinta Cabdulwali ayaa isog waan u macnay Cabdulwali waa ka sheegay TV-ga Somaliland waa ka sheegay yiri xarigan haba yaraatay ma khusayaanaka baddu mari doona badda caalamigu maraya badda ma aragtay xarkaha kale adduunku maraan oo dhan buu maraya oo una gaar maraya waa ka yiri xiriga inaad waxaan u maleynayaa si xun baa loo fahmay waxaan doonayaa inaan ka qaado ma aragtay fahmaadan inaan la ogaado inuu xarigaasi zaan u baxayo Boosaaso tagayo uu Muqdisho ka dhaadhici doono insha Allah ilaa Mombasa Somaliland haba yaraatay xariga ma galayo walaalka